waxaan ku yiri halkan waxaan awoodi karaa maanta dee ama dalkaygii baan joogaa Soomaaliland suma caasimadayda baan joogaa ku halkan aan kugu dhigayaa aroos nooca aad rabto maybe waxa lagu yiri ninka xumaantiisa noo sheeg bal wax dib noo sheeg waxay tiri wax dhiba oo abti ka sheegay ma garanay ninkaasi wax alla wax aan rabo aan ka helay wax alla wuxuu yani gacanta ku haystay wixii waxay yahay wax dhibaato oo iga sheegtay ma jiro aan ahayn taas iyo muxuu noqon waayay markii labaadna wala suutii wax anagu gacanta ku haysan ما إله ما خير بنو ما لهيني علم كلا جري واحد هذا قاسك واحد للدين مكان مكان بحي توبي سيسوع وبحر يسمع يا واحد مكان خاص أساوي شيء كذا هذا الذي معنا الخاصين سهرتك سيارة خاص كي جينا سمع نرش ما لندن نرش واحد يكون من الشروط وترك جيران برد إذا بدينا وانو وذي تشوغني لما نمضي وانو وذي تشوغني وانا كلا تشوغني لكن تدخل نمي فهن سنين نمي دريمين لفيه دا إيو كبت نمدي دا ويهي ستين وانو دائي أنو تحقريني كل احترامي وحي أدعضي كورانتيدي كدب كان كورانلي gabadha markaan kulannay waxa dhacday in anagu aan wada joogin oo aan is arkin aan midowno oo aan nolosha ku midowno ku meel kala duwan waxaa kala joogaa way laakiin kalsooni badan iyo kalgacal badan laga dhexeeyo magaranaysaa daacadka ah oo runkaa sheegaya magaranaysaa nolosha ama meeshaan u socdo iyo waxaan rabno dee ka midaysan run marka la sheego gabadhaasi waa gabadha dhabarkeeda ku qaaday arrintii aynu ka sheekaynaynay ee fanka in ay derbigaas ay keligeed jebiso tusaale ahaan عقبات بدن بفيني marka de ay soo la ogaaday arintaydi laakiin waxa naftaydu aad ay ilaa imka aan aad ugu farxaa in dadku ay soo wada noqdaan in dadku ay soo wada noqdaan oo ay soo fahmaan ay hada kaliin waayo may eegin iyadu barnaamijkan fanka suugaantani waxay هي نفس القرآن وحوط ورانو خلقه هي كاشة عوامات مركي هوري وفاهمي كده أي عوامات كاشة وقرب سي وقرب نقول سي لبضي دبا ما هكي يدو وانا أدو مهنا قيو واحد عضي دربي مركي صور دعفتي دربي كلام دربي اللي يبدين يهندو يقول هاي دربي وكذلك يجينا ويبرين واحد عضي مركي كاس عن مرينو حقيقة هذا دروس تاعو عيدروسو مركي هوري ونكوب الله صلي والشيء كستن أول دروس تاعها حقيقة هذا ولا دروس تاعها لقمة تبغى وهي أنا فرحت دي ده وح والبقينا وصلي ديار بمعايا وأنا كوب الله صلي أنا كل بلامي وايو في حدي أن تبشتهاي وايو ولا داري جبان ولا مكان وايو وحش شيء قبل حد عرض في مكان العضي هل كان نيمي مكان كان نيمي ينويتني إن وقتي بنقول أنا عضي حولك أو قيس با dhinac kale igu yimi culaysyo kala meel kale iga soo koray waxay noqotay
inaan kharash badan markaa isticmaalo iyo waqti badan oo aan ugu talagelin aan isticmaalo oo arrimo qoys oo kale xagga faamilka ku mashquulay aad ugu mashquulay waa kharash badanna iga baxay waqti badanna aan joogay markaa ballantayadii anigu aan hore ugu qaaday dee waxaan markaa dalkeennii aynu ku qabsanay arooska hargeysaan kugu dhigaya arooska ugu qaadaysa hargeysa ayaan arooska ugu qaadaysan kugu dhigaya waxaan kula ballamay oon u ballan qaaday inaan meeshay jecesha oo turkiga noqotay turkiga ugu timo dooratay dee markaan waan awoodayey mowti lacagtii waan la imi markaan imi halkan kharashkii wuu isdhimay walaal waana ku weli meel waxba igu soo baxay waana carabku malan kugu dhufan inay arrimo kale xagga faamilka iga yimi waqtigina igu dheeraaday iyadoo markaa ballantii bay ku taagantay soo maa waxaan ku wiri halkan waxaan awoodi karaa maanta dee anu dalkaygii baan joogaa somaliland soo maa caasimaddeydii baan joogaa baan ku wiri halkanaan kugu dhigaya aroos nooca aad rabto may bay tiri waayahay markaa waxaan baadi goobay sidii aan u badbaadin lahaa wada jirka dabalada kaeg okay markii aan dalka imi waxaa dhacay in aan viisigii turkiga ile gabadha waan ballansanay ballan baan gollay soo ma soo labaan ballamay viisigii turkiga ee arooska halkaas aan kusoo samaysan lahayn turkiga anigu aan hawshiisii galo inay kharashaan ku bixiyo viisigii turkiga in loo soo diido markii koobaad marka koobaad viisaha anaa kharashkiisa iska lahaa suu dhamaystiran yahay lacag saddex kun oo doolar ay kaga baxday waana la soo diiday waxa inaan ka xeraysatay guri waan u diray nimaan garanaysaa ilmaadeer nahay oo xididna aan nahay oo turkiga jooga axmed faarax awala bustaale waan aad u salaamaya isaga iyo qoyskiisa gabadhaan aftigoo ahaya walaashay safiya xasan dhashay miskii muuse maxmed iyadii carruurteedaba iyo qoyskayga baan salaamaya halkaasay degan yihiin maxamed baa hawshaa galay si mug iyo miisaan loo galay laakiin dee fulinta isagu ma leha anna malihii iyadna ma laha ilahay baa iska leh waxbaan ka qaban kari weydey diid maan ka hadlay mar labaad ayaa waxa aan hawl gallay in haddana fiisiyahan raadin maanaan daalin mar labaad baa waxaan xoogga saarnay oo aan ka hawl gallay inaan fiisihii raadin mar labaad weli halkii baanu hawsha magaranaysa la dabacsannahay moogta waxaa dhacday marka labaad kharashkiisa iyo hawshiisa inta badan iyadaa lahayd laakiin marka saddex loo qaybiyo marka laba loo qaybiyo ayaan ugu qayb ku ahaa laakiin iyada iga caawisay marka labaad garab bay iga siisay oo hawshii wirgasho waxbaan isku darnay marka iyadna qaybteedii hawsheedii bay ka gashay anna hawsha qaybteedii ayaan ka galay ana hawsh ku jiray waanu isla garab galnay markii labaadna waa la soo diiday markii labaadna waa la soo diiday wax annagu gacantaan ku haysay ma ayna ahayn dee malaha khayr ba nooma lahayne cilmi kalaa jiray wax daaqaas ku xidhay la diid markii labaad markii anaga dhacday waxay aad iigu celcelisay cabdi noqo igu celcelisay sababta igu celcelisay maxay ahayd noloshayada saama midayn xaaskaygina sama laakiin nolosha maanaan midayn nolosha waxay ku xidhnayd shuruudda turkiga inaan midayna waanu wada joognay lamaanimadayda waanu wada joognay waanan kala joognay laakiin dadku namay fahansanayn namay dareemaynin lafaheeda iyo gabadhnimadeeda way haysatay waan u daayey aan u tixgelinaya ku ixtiraamayay anigoo dee damiir leh dee qof noola oo nin noola dee ayaa haddana aan ku ixtiraamay
ballantaydi laakiin dee qoys dhammaystiran bay dadku noo arkayeen mana dhammaystirnayn waanu dhantaalnayn laakiin waan liqay maskaxdayda ayaan qaadsiiyey waxayna qaadi karayn oo ilaahay ugu talagelay saan u fuliyey ballanta wax walba waan u samaynayay halka kharash badan baa iga baxay hoteelo badan baan degay anigoo ilaalinaya weli ballanta oo aanan midoobin weli la soco waana wada joognaa hase ahaatee waxaan soo bandhigay inay disaas dhacday haddaba bal arooskaas baan ka dhigana weli kamaan quubsan waxaan tixgelinaya weli arooskii hadda hadalkayga waxaan idhi markaa arooskii bal aynu weliba iyadoo ma rabtay taanduhan rabaa marka aroos oo sida saxda waqtigaa waan rabay inkastoo imika aanan sidii aanan ku ahayn oo aniga aroos waa kala xanaaqladee ala aroos wuu ka xanaaqaya mugtay aroos ma maqli karo mugtay waxbaa dee mareeda waxay ka galaan aroos aniga aroos beerku iga laagay aroos wariga waxbay beerku iga laagay mugtay waxa dhacday waxay ku hadla inuu ka dhigano waxayna tabaan samayn karaa marka halkan baan ku uri waxaan rabaan samayn karaa dooro cid si alla sida ah jeceshahay baan halkan kaaga yeeli karaa mandaqada iyo masarka aad bartamo ka sarreeyaan hubin karaa dalkaygii baan joogay caasimaddeedii Soomaaliya laga dadkaygii saasaa la ii qaadaya baan ku uri anigu waa la ii shaqaynayaa dhagaxa iyo adeegii dhirta dabsubay weynahayn masaasi okay marka waxa aan go'aan ku qaatay in iri maadaama ana khashka aan ahay ka in la tabe asaxta talabaad soo waxa mar laba ka tiri cilmiye kala lagu joojinaya hawlaad ka jirmo ka waxaan daba laabanaya markaan laabto aan soo shaqaysto kadibna aan arooskaaga meesha aan ku noqono markaan ku noqono laakiin waan tagay way sidaas aan isku ogeyn hase ahaatee waxa weeye arrintii ugu daba dheeraatay kale ku sheegay waqtiga qaatay talaabaduna way tirsan tahay cilmiye kale meesha la isii joojinayo waxba la tusiyo library arday baraha aan weydi duruustii u dhamaanin kadib anigoo markaa baxay Ethiopia si socda oo baxay sidee ayaa waxay tiri markaa khas taageeray meel dhow ka heshay ka fogay maxkamadaanu galay maxkamadii naadee egtay kadib maxkamadii ayaa hawshii noo fududeysay iyadaana dalbatay inay ka baxda nolosha anigu ma dhan adu mar walba diyaar ballah inaan noqdaan dooni baan ku balanteedii arooska aniga oo aan weli diyaar bado aan xaqigii diyaarna waa u tahay diyaarna waa mar labaad wax أنت لفتيجي المحكمة ده كده ما كش المحكمة ده وان كم قرأت في فما كوها والله لا سعره بس هي ومشة ينوشة المحكمة ده يقول لك استدر تروح حيلة مرحبا أيضا ولشيني مدينين هي الماء دلبتين مرقدة هو أدوبة وحقوقه القرآن باسمين أنه حقوقه iyadoo warqad dalbatay markii hore baa iyada hadalasa xaq u lahayd ay qayb ka dhimaqan balse ay ku weyday qaybtii marka noloshii quruxda badnayd waxaa soo gaabiyey xilligeedii arooska كدعي حقيقة قفني واحد جبته واحد يسوي ولا معنين كان يسوي واحد من عشرة
iyo wuxuu waxba ka qaban karin tiri aniga oo isjecel tahay gabadhaas aniga oo isjecel oo israafna naxariista idaabta akhlaaqda haybadda iyo sharafta ay lahayd iyo si ii ixtiraamaysay iyo sida ay ii jeclayd weligeed kelmad iga nixisa xataa ma oran ma i soo jeediso kelmad adiga igama soo jeediso dhabarkayga soo ma dhibaay inay naxariista igu soo jeedinaysay yani qof dhamaysta xagga dhamaystirka u dhowbahay marka inta la isiiyey baa la igal noqday heestii xasuusta inta la iga yeersiiyey aan la igaga tegin marka anigu iyadu dambi inay leedahay uma haystaba ee wuxuun bay garan weydey waxaan bay macnayn kari weydey waxay yihiin waxaan macnahan hor yaalla waxay bay garan weydey iyadu marka dambi ma jirtay aad ka samaysay ma hees hore u sameeyey ayaa ilaahay iga yeersiiyey oo iga tegi waayey wax la ilaahay erika yeersiiyey haddana kaagama tago maamaad maxay ahayd eri sumayn waxa ay ahayd calafkiiyo rajadaan helay haddana waayey oo lumay heesta lagaa halow ma maqlaysaa howlayso jawaab ma maqashay heestaasi halow waxay sawirka ay bixinaysay wuxuu ahaa mid iga dilayay heestaasi laygama tegin وهالشو هذا هو على كيف ترى هنا هذا هو يقول له هذا مقشة أريد هون يسوي جوا وحين اللي يسوي هي اللي يقال نقضي لكن كمان أشهر قفك يقلبون نقض وعلم يأكل كسرة قفك يسوي الرباء وحان هو قبل ده سيده يرتاي يتهدي لكن ميل كودجة يعني وقول لي إيميل اللي جدّو nolosha in meel lagu dhago oo go'aan lagu socdo hore oo qalad ay yimaadeen ka dambeeyay nolosha inteeda kala ka baxay waad ogtahay macaankayga iyo dhadhankayga qayb ka mid ah taqaanad mar intay ugu naxariista iskugu naxariista macnaha intiina wanaagsan waxyaabaha inay soo tagil waayo iyo go'aamada inay soo tagil waayo ee mahaydeen nolosha ha ku burburinina oo fariimahan ka diray qisadan go'aamadii nii hore ku adkaanina isku naxariista isku degdeg xaaladaha la soo xaaladaha isku naxariista qofnimadana isku naxariista xiriirka naga dhaxeeya fiilka dhaxeeya qofka intuu ku naxariista way bal kelmadihii hadda naxariistiisa kelmadihii kulli adigana hadalka waa lagu siiyay iyadana hadalka waa siiyay adiga dhinacaaga wanaagga waxa lagu ninka xumaantiisa noo sheeg bal wax dhib looga sheeg waxay tiri wax dhiba oo abti ka sheegay maba garanay ninkaasi wax alla wax aan rabo aan ka helay wax alla wuxuu yani gacanta ku haystay wixii waxay ahayd wax dhibaato oo iga sheegtay ma jiro aan ahayn taas iyo muxuu noqon waayay waxay akwiidi waxan nolosha garan wax lagu gidam laakiin dhibaato igama sheegin horteeda kama sheegin galaashina kama sheegin maxkamadda looma sheegin laakiin wixii fahmi way hal su'aal baan doonayaa abdiina ku weydiiyo dhalinyarada hadda nolosha guurka ku midoobaya ee jidkaa haya ee dhibaatadan oo kale ay la kulmi karto rabitaanka wax ka baxsan labada qof xiriirka ka dhaxeeya dhammaanka kaga imanaysa hore u socotay inay noloshooda ku burburiyaan maxaa fariin uga diraysaa waxaan fariin uga dirayaa in wixii noloshooda ka baxsan ee dibadda kaga imanaya aanay sabab u noqonin faa'iidadii iyaga dhexdooda ay kala heli lahaayeen inay malag ku noqotay dee khaarishaydii oo ay qabri gelisatay يعني كواين يعني هنا حريص أي كلهين لهايين وأي مدبّدن كل نولان لهايين قيال بدن إلى نولان لهايين إن أي مقرنشة واحد بدك جيبة مقرنشة أي قد جلسوا مدرس كتير وين وتنبيتي هي سفرة بدن باطن السين بعدوي فرق بدن باقصون مري ومن كستعبد درين كذا يبقى السيد الدنيا دايلة هي سافرة يسوي حكمتك وعلى هاي مينو يهجعي
oo su'aal isku weydiinaysa adiga laftiga heestaas talantaaliga ahayd waqti aniga kala qaadaysay iyaguna waxa ku leedahay iyo neefsanaysay bal heesta maxaad uga jeeday markaa waxaan heestaa uga jeeday waxa aan naftaydii rabay inaan dee garwaaqsi aan sameeyo bal nafteeda la garwaaqsado halkii hore su-aasha adiga weydiisay lama noqdo aan ku dhammaystiro iga raalaho waxaan uga faa'iidayaa yarta arrintii aad weydiisay oo ugu daraya inay isku tanaasulaan hadalkayga dayg oo isku garaabaan galladna isa siiyaan saddexdaa inay kala helaan lamaanuhu haddii ay isku tanaasulaan oo ay qalad ay arkayaan qaataan iska daa mid la fahmay wahayo oo tanaasul meesha yimaado war mudnaanta waxaa la siiyaa qof aan mudnayn si looga helo mudnaan qof aan mudnayn in la ixtiraamaa si loo bedelo habdhaqankiisa iyo dabeecaddiisa u wanaagsanaado gadaal ba loo samraa laakiin qofka mudan in la siiya mudnaanta ee isagu mudan siiya oo isa siiya mudnaanta kuwiina aan mudnaynna yacnihii isa siiya oo magaranaysaa isku tanaasulo oo wanaag dambe ka suga kanaan mudnaanta mudnayn kuwa mudan iyo kuwa aan mudnayn ba hala siiyo tanaasul garwaaqsi iyo galladna isa siiyo iyo in la isku garaabo waa in libinta la isa siiyaa oo libinta qofka uu ku siiyey kula nool ha qarinina sheega guushiisa sheega libintiisa sheega isgarwaaqsada oo wada hadla oo isdhaafsada magaranaysaa eri isdhaafsada iskuna garaaba